طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تاب ربك في الفؤاد تمزقا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني أين كجور ميني برشاد التجويد كا وانا درسكي أما عشركي سجالات وحين كسو جرني حروفتا iyo meelaha ay ka soo baxaan oo makhaarij iyo mawaadic oo casharadeennii hore aynu ku soo cadaynay. waxaynu ku soo jirnay carabka oo ahaa goobta ugu ballaaran iyo qolalka ama makhaarijta ugu ballaaran ee xuruuftu ay ka soo baxdo. waxaynu ku jirnay waynu maraynay innaga oo soo dhiganay soo gabagabaynay carabkii. marka la soo ururiyana xuruufta carabka ka soo baxda waxa ay ka soo baxaan 10 qol ama 10 meelood. waxaan la yiraahdaa dhammaantood kulluha lisaaniya waa xuruufta ka soo baxda carabka ayay culimada tajwiidku u yaqaanaan li khuruujiha min al-lisaani waa carabka ay ka soo baxda darteed. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى مقدمتي سنة وميلوه كعدي إسقو سودي مركو بلابيي حروفتا كسو بحدا وحا والقاف والشطر البيت أما بيت بركي كسو قبوبي أي والقاف يلي أغصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ ولي هل كاسودي إلا ما أكسو قبوبي. وحين بلابينا المخرج الرابع المخرج العام مخرج عام يجود وين نلاحظ مرة قاركودنا وجورية أفراد يقولوا الكيسي أو مخارجتي خاص كهيدا الشفتان والدبنة لبدا الدبنود وي واحد مودا مرة وين سوسعن وانتي عربكي إما وحين مرينا إما كدبنه دبنها وجوريا والدبنت سرية دبنت خاصة وحا وليه هاي لبقل أما لبا ميلود أو حروف تلاقو تلقلي إني كصوبحان لبدا ميلود وحا كصوبحا 4 حرف هل حرف ميل بو كصوبحا 3 حرفنا ميل أيي كصوبحان 3 حرف انت اينا شيغين حرفك ايا كفدود او اينو شيغي كرنا حرفك afarta kamida ee meesha gaarka ee dibnaha ka soo baxa waa xarafka loo yaqaano fa waxa ay ka soo baxda dibinta hoose caloosheeda waa inta cas oo labada foole sare ay taabanayaan labada foole sare oo istaabta iyo dibinta hoose oo istaabta ayaa waxa ka soo baxay xarafka loo yaqaano fa
فلقتحم العقبة marka hadii lagu weydiiyo labada dibnood kama soo wada baxo faadu dibinta hoose caloosheeda oo labada foole sare caaradooda la taabsiiyay ay faadu ka soo baxdaa fa qolka labaad ama makhrajka labaad ee dibnaha waxa uu noqonayaa waa labada dibnood oo isku dhaga waa labada dibnood oo wada shaqeeya deedna wada shaqeeyntooda ay ka dhalato saddex xaraf inay ka soo baxaan saddexda xaraf waxa weeye alwaaw walbaa'u walmiimu waa waaw wow lama yiraahdo dadkeenu waxay u akhriyaan wow wow la ma jirto carabiga waxa la wow kuma jiro waaw marka alifbada la dhigayo ee caruurta loo dhigayo ama qofka bilowga loo dhigayo waaw ayaa la oranayaa sidii xuruuftii hore u soo saxaynay ee qooyinku kamid aha ilaa qooyinku ma jiray qayn baa jiray ee daal iyo dhaal aynu oran jirnay aanay jireen daal iyo dhaal aha aynu saxaynay aynu waawgana u saxaynaa alwaaw walbaa'u walmiimu marka caadi loo akhriyo waaw ba miim way saddexda xaraf waxa ay ka soo baxaan labada dibnood bay ka soo baxaan labada dibnood miimka iyo baadu labada dibnood way isku dhagayaan miim miim ba ama ab labada dibnood way isku dhagayaan waawdu labada dibnood ayay ka soo baxdaa laakiin waxooga furiina hareeraha waxaad moodeen iskaga soo dhagaysa laakiin dhaxdaasi ay furmayso waaw hada laakiin isku dhajiso oo tiraado wa maba ku dhawaaqi kartid waaw 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 waa inaad tiraahdaa markaynu waawda ka hadlayno waa inaad u fahantaa waawda xarakada leh iyo waawda reeban ee fatxa ka horeeyo waayo mar walba ardayga waana meelaha ay ardaydu marka baabkan laga hadlayo makhaarija xuruufta iyo mawaadiicda laga warramayo ardaydu ay runtii isira weydiiyaan xaraf baa meel hore lagu soo sheegay haddana meel kale lagu sheegaya waaw waxa lagu sheegay oo aynu soo aragnay markii aynu qol gurigii koowaad iyo qolkii koowaad aynu ka warramaynay oo ahaa aljawf saddex xuruuful mad ee alif iyo waaw iyo yaa ayaa ka soo baxay aynu nidhi inta banaan ee carabka iyo hunguriga inta biyaha iyo cuntada ay maraan aynu nidhi halkan imika waxaynu sheegaynaa inuu leenahay waawgii waxa uu ka soo baxayaa labada dibnood oo laakiin kala yara furma marka sidee ayaad soo waafajinaysaa waxaad oranaysaa casharka hore inuu ka soo waranay ee waawda ka waramayay waawdu waa marka ay tahay xuruuful mad xuruuftii madka xuruufta madkuna shuruud bay lahayd waaw waa inay reebantaa damana waa inuu ka horeeyaa yaqulu qulu 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 yaqulu taasu baabkaasi ka waramay baabkana wuxuu ka waramayaa waawdu marka ay xaraka leedahay wa fatxa oo kale wi kasra oo kale wu dammo oo kale iyadoo ay leedahay ama se sidii taamadka aynu ku soo sheegnay inay reebanto laakiin ay ku khilaafto taa hore damma ka horeynayay ee in fatxa ka horeeyo مثلا خوف واو way reebanta laakiin maxaa ka horeeya fatxa ka horeeya sidaas darteed xuruuf liin baa la yiraahdaa halkana ay ka soo baxdaa aw ayaa la oranayaa sidaas darteed waa muhiim in aad dareensanaato waawda marka laga hadlayo haddii ay xaraka yeelato ama ay reebanto oo fatxa ka horeeyo liin la yiraahdo waxa ay ka soo baxaysaa waa xuruufta dibnaha ka soo baxa labada dibnood laakiin in yar oo infitaaxa ama furida labada dibnood yeeshaan miimka iyo baadu waa la walaalo
laakiin in yar bay ka duwan yihiin miimka iyo baadu iyagu laba dibnood waa inay isku wada dhagaan am ab waa ina tiraahdaa waxa inoo hadhay oo aynu gelaynaa goobtii ugu dambeysay ee xuruufta ay ka soo baxdo oo loo yaqaano الخيشوم marka aynu al-khayshum ka hadlayno inta ayna sharxin waxaad ogaataa 28 xarafba waynu soo dhameystirnay goobahay ka soo baxayeen xalqigi ama dhuuntii iyo hungurigi 6 xaraf baa ka soo baxay 6 xaraf ayaa ka soo baxay 18 xarafna waxay ka soo baxeen carabkii و24 أفرنا وينجني مكان لأنه دبنا هاي كسب بحين استيلا تكعرف ويدني مركا جوابتي وهو الرئيسي يقول ككلينا الله هيد أو أهيد جوفك هي حال كان مكان مرنا جوريجي شناد هي مخرجكي أما قولكي إن قدام بيجي guriga iyo qolka isku jira waa guri hal guri oo laakiin qol qurana ah waa istooro kale midalan markaynu soo dhaweynino kuwaas iyagu malaha xuruuf gaar ah oo aynu sheegayno in leenahay jim halkaas ma ka soo baxa waxa weeye mid waliba kuwaasna waa xuruuf yeeshay mad oo la jiidayo habka loo akhriyo oo laakiin markay caadiga ahaayeen saddexdan galay meelooda kale iyo cod isagu cod ka imanaya xuruuf ba isu tagaysa markay xuruuftaasi isu tagto ayaa waxa ka dhalanaya codkaas oo ka imanaya sanqaroorka waa khayshumka waa kan shanaadiimka aynu ku jirno marka xuruuf xaraf gaar ah waa xuruuf isu tagtay deedna sababaysa in cod laga keeno ay sababaan cod xagga sanqaroorka ama sanka halka ugu dambaysa kasoo baxayo ka dhalanaya xuruufta isu tagtayna ay keenayso waana xuruufta keenta qunnaha waxa loo yaqaan waxa weeye in waxooga reeni uu ka baxo xagga sare ee sanka imika inna nuunka markaan akhriyay adkeynta aan adkeeyay kadib waxa aan sameeyay oo kale codkii baan sidii wax celiya ka dhigay codkii baan ku sii adkeeyay codkaasi wuxuu ka yimid halkaas sanqaroorka ayuu ka yimid qunna la yiraahdaa waxa la wixii qunna keena xuruufta marka isu tagaan qunna keena ee codka noocaas keena ayaa waxa la yiraahdaa halkay ka soo baxayaan baa waxa la yiraahdaa al-khayshum sanka dushiisa ama halka ugu shaysa sanka ay ka soo baxaan مثلا imika waxa doonaysaa thumma lamma inna waxay waa miim shidan ونون شدا وغنى ميما ثم نون شددا وسمي كلا حرف غنة بدا أي سليمان الجمزوري في تحفة الأطفال كشيء نونك هدو شدي يشو ميم كنا أو شدي يشو وحا لقصو سارا عد قلنا الليلة هذا أو كسو بحسن قرار كأيا لصية waxaanay culimadu yiraahdaan culimada tajwiidku marka ay tijaabiyeen ilaa 10 tajwiidku wuxuu ka duway duruusi kale isaga waa in la dabaqaa hadii aan dabaqin oo aanad furin 10 tajwiidka ee aad dhigataa qiimo badan yeelan maayo waa inaad ku dabadaa quraanka kariimka marka sidaas loo akhriyo lagu yiraahdo waxay leeyihiin marka inuu codkaasi sanqaroorka ka imanayo iyo sanka xaqiisa shishaha inuu ka iman aqsal anf waxa uu daliila hadii adigoo qunihii wada aad sanka isqabato uu istaagaya xarafkaasi tusaale baleega inna sanki wuu furay codku uu soconaya inta doona wadi kara inkastoo culimadu ay qadar u sheegaan laakiin tusaale uma doonaya inaan ku keeno inna wasi wadi kara intaan doono codka reenka iyo codka baxaya laakiin haddaan islaahdo aniga oo qunihii bilaabay aan sanka isqabto codku istaagaya bal eega in ka istaaga ثم سمينا بلاغدا ثم ويستاغيا وتجابده لو تجابيو قنها حروفته اللي ولا قنيه حروفته انت اسو تغتل لقنيه وا حروفته امكان ادين شيغا او كله وا حروفته كانت وينو دغان دوناي waxa weeye idqaamka qunnaha le حروف لا حروف الادغام ayaa jirta
oo qaarkood la quneeyo afartaasi waa nuun saakina iyo tanwiin oo midna afar xaraf ka daba dhacaan oo yanmu la yiraahdo ya nuun miim waaw ay daba dhacaan waxa kamida mesela oo kale quneeyaasha waxyaabaha keena xuruufta ikhfuhu waa 15 xaraf waa nuun saakina iyo tanwiintu waa laba kordho laba hoosdho iyo laba la goday oo ay xuruuf 15 daba dhacaan oo aynu dhigan doono sif dhaathana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ضع ظالما و15 حرف ee beedka aan akhriyay ugu horay waynu dhigan doonaa casharada wali meena gaari laakiin waxaan uga jeedaa xuruufta imika 15 ah iyo afarta xaraf ee ku horeeyeen sheegay iyo miimka iyo nuunku marka ay u shad saarmo quraanka dhexdiisa waxa la keenaa waa in cod lagu sameeyaa sanka ka soo baxaya oo waxoogaa soconaya oo qurux gaar ah u taraya xarafkii taasa muhiima sidaas darteed waxa weeye khayshuunku waxa weeye waa sawdka iyo codka soo baxaya ayaa loo yaqaanaa codka qunada waxaanu ka soo baxaa sanka halka u fog ama u shaysa culimada qaarna meel kale ay ku soo imanayaan waa sanka xaqiisa ashoon marka la soo ururiyo waxa halka inoogu dhamaaday daris balaadna oo aynu ugu magac darnay makharij al-huruf xuruftu halka ay ka soo baxdo waxa la yiraahdaa duruusta ugu muhiimsan ee marka tajwiid la baranayo waajib ay tahay inuu ardayga quraanka baranaya barto waajib ay tahay qofku inuu marka uu tukanayo uu ilaaliyo ay tahay quraankii saxda ahaa ee ilaahay yiri warattilil quraana tartiila markuu akhriyo waa marka uu de goobtu ka soo baxay xarafki uu ka soo saar hadii xarafku halku ka soo baxay laga soo saari waayo de waxa laga yaabaa macnihiiba inuu isbedelaba waa daruuri walaalayaal waa muhiim in lagu dadaalo oo macallimiintu ay kula dadaasho ardayda waliba waxa la tijaabeeyay oo macallimiintu ay aad u tijaabiyeen ardayga hadii marka uu quraanka bilaabayo aad loogu dadaalo oo carabkiisa sida loo saxo oo makhaarita adigoo aan duruus badan ba u dhigin ayaad maalin walba intaad soo istaagtaa eega bal eega had carabka saan soo saaraya xarafkaasi carabka la soo saara bal eega waan soo saarayaa iga daba dhaha deedna ardaydu ay ka daba tiraahdo waxa laga yaabaa ardayga noocaas u bartaa waxa uu noqon doonaa arday carabidiisuna wanaagsanaato carabkiisuna wanaagsanaado quraankiisana hagaajiya hadiise aan lagu dadaalinta oo macallinku uu ku dadaalo ardayga intuu u yeedho uu yiraahdo casharkii baan ku qoriyaa alif ba ta tha uu qoro wax badan faa'iido maayo waxa muhiima oo marar badan ku celcelinaya in ardayga loogu celceliyo hatta marka qaarkood marka ay safka ardaydu taagan yihiin quraanka baranaysa in macallinku alif baada ugu celceliyo marka qaarkood ay dhacdo klaaska markuu macallinku galo intaanu quraanka u bilaabin ilaa waa 18 xaraf waxa la baranaya iyo in yar soo raacda oo kuwaymka qunaheen ka sheekeynaya xuruful madka ah ayuu ma laga sheekeynaya inuu macallinku xataa klaaska ugu sharxi karo waxa runtii muhiima وين ugu horeysiinay oo tajwiidkii kale oo dhan ay ugu horeysiinay waa rukni iyo tiir weyn oo kamida tiirarka tajwiidku ku taagan yahay quraanka akhriskiisu ku taagan yahay makhaaritu waa tiir kamida tiirarka tajwiidku ku taagan yahay sifaadka oo aynu bilaabay doonaana waa tiir labaad oo ah xarafkan markaad qolkii gelisay ee uu soo baxayo hay'ada iyo sifada tilmaanta astaanta uu ku soo baxaya siday noqonaysaa waa tiir labaad labada in lagu dadaalo wanaagsan waxa muhiim oo kale hadii la doonayo tajwiidku inuu saxmo macallin waa inaad u leedahay aniga carabda aqaano akhrista ma noqonayso waa inaad macallin u leedahay aad carabka ka qaadan karto waxa soo raaca xakaamta kale faraha badan ee muddada qaadan doonta ee noo soo socotana inuu barto inta markuu barto ayaa wuxuu noqonayaa mid bartay runtii tajwiidkii sidaas darteed waxa aan runtii ku adkeyn lahaa ardayda aan aad ugu adkeyn lahaa in ay taa ku dadaalaan sheekhu isagoo ibn jazari rahimahullahu ta'ala labada
goobood imika aynu ka warranay ee midna ahayd dibinaha ama dibin kamida iyo codkaasan qaroolka ka imanaya khayshuumka waxa uu yiri uu soo waday wa min batni shifa falfa ma'a atrafi thanaya almushrifa للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم أيها ابن الجزري رحمه الله تعالى halka waxa aynu ku soo gabagabaynay xuruufta goobaha ay ka soo baxaysay waana markaynu qaadanay culimadu sida ay u badan yihiin jumhuurtu inaga oo runtii halka ka sii wadi doona dariskeena halkaas ayaynu ku joojin doonaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب الله أعذب